waddanka ogaadeen iyo 27 sano ee la soo dhaafay waxa uu wajahayay dhibaatooyin lagu tilmaami karo kuwii ugu xumaa ee abid soo mara taariikhda inta la og yahay waxaana ka dhacay dhacdooyin ay qariib tahay dunidan casriga ah dadka ku nool in laga dhaadhiciyo inay ka dhaceen meel adduunka kamida dhacdooyinkan argagaxa leh oo ah kuwa si heer sare loo soo qorsheeyay ayna soo abaabuleen hoggaankii kooxda TPLF ee talada waddanka la wareegtay bartamihii sanadkii 1991 ayaa ahaa kuwa looga gol lahaa oo kaliya in shacabka ogaadeen iyo lagu ogolaysiiyo qaadashada gumaysiga Itoobiya oo aysan weligood aqbalin waxaana diidmadaasi ay ku xambaartay kooxdii bahalka ahayd ee TPLF inay geystaan xasuuq wadareedyo indhaha caalamka ka qarsoona balse ka dhacay fagaarayaal gudaha waddanka ogaadeen iyo dad badan oo shacab ay goobjoog u ahaayeen nooc kasta oo xasuuq iyo bahdil ah oo shacabka ogaadeen iyo lagu sameeyay marna ma aysan noqonin kuwa garoda u laalaadiyo gumaysiga Itoobiya waxaana intaas oo dhibaato ah qayb ka ahaa horjoogayaal lagu sheegay madaxweynayaal oo kooxda TPLF ay midba mid ku bedelaysay kuwaasi oo tiri ahaan gaaraya 11 uguna dambeeyay Cabdi Ilay oo isagu taariikhdii ugu xumayd abid kaga dhex tagay dadkiisa haddaba Mustafa Maxamed Cumar oo noqonaya madaxweynihii 12aad oo soo mara ogaadeen iyo haddaba Mustafa Maxamed Cumar oo noqonaya madaxweynihii 12aad ee soo mara ogaadeen iyo sidii doonibaha ku yimaadeen ayaan milicsanaynaa caqabadaha hor yaala ay tahay inuu ka gudbo ugu yaraan sifo uu xukunkiisu si shaqeeyo caqabada koowaad ee hortaala ayaa waxay noqonaysaa kala qaybsanaanta bulshada sagaalka gobol ee waddanka ogaadeen iyo uu ka kooban yahay waxa wada degabeelo Soomaaliyeed oo walaalo ah kuwaasi oo dhibaatada gumaysigu wada saameysay balse la dhihi karo waa ay u kala badnaayeen xasuuqa iyo xadgudubyadii muddada dheer lagu hayay shacabka ogaadeeniya gumaysiga oo adeegsanaya awood kasta uu lahaa mid ciidan mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid bulshada markii uu ku guul daraystay fulinta qorshayaashiisa waxa uu sameeyay qorshiye caanka ah ee loo yaqaano qaybi oo xukun kaasoo lagu kala geeyay shacabka laguna abuuray siyaasado iyo qorshayaal ku dhisan qabiil oo beelaha Soomaaliyeed ee meesha dega madaxa la isugu wada geliyay waxaana halkaasi ka soo baxay kala qaybsanaan bulsho oo horseeday inay dhacaan dagaalo dhiig badan ku daato oo inta badan gobolada waddanka ogaadeen iyo ka dhacay haddaba caqabadani kala qaybsanaanta bulshada ah oo marka laga yimaado kooxda TPLF ay muuqato in kooxda hadda talada hayse ee oramaduna ay isticmaalayso ayaa ah caqabad adag oo hortaala madaxweyne Mustafa waxaana hubaal ah in caqabadani ay safka hore kaga jirto dhibaatooyinka waaweyn ee halista ku ah guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed arrinta xiisaha leh ayaa waxay tahay in odayaal gaaraya 700 oo loo maalin ka hor Addis Ababa ay kula shireen ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxa Soomaalida ee la socota ay si cad uga dhex muuqatay kala qaybsanaanta ku salaysan qabiilka ee bulshada Soomaaliyeed laga dhaxabuuray iyadoo ay qaar ka mid ah odayaashu soo bandhigeen cabasho qaab dacwadeed u dhigan oo ay kaga cabanayeen beelaha kale ee wada degan yihiin deegaanka oo sida ay ku doodeen aan waxba u ogolayn taasi oo muujinaysa heerka kala qaybsanaanta bulshadu ay gaarsiisan tahay caqabada labaad ee hortaala madaxweyne Mustafa ayaa ah maleeshiyada liyu booliska oo si sharci darro ay u sameysteen taliyaashii ciidankii gumaysiga Itoobiya ee Tigreeg ahaa waxaana maleeshiyadan loo carbiyay xasuuqa iyo caburinta guud ahaanba qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed ciidanka liyuga oo aan la barin anshaxa iyo nidaamka ciidan ayaa waxa si khaldan uga faa'iideystay maamulkii hore ee kooxda Jigjiga taasi oo keentay inay gabi ahaanba noqdaan ciidankaasi kuwa daacad u ah oo kaliya wakiilkii hore ee gumaysiga Itoobiya u fadhiyay ogaadeen ee Cabdi Ilay waxayna intooda badan aaminsan yihiin in haddii uu meesha ka baxay Cabdi Ilay oo ay u yaqaaneen aabahooda aysan iyaguna ka dambeyneynin ciidanka oo sida hore aan ku sheegnay aan loo diyaarinin hanaan ciidan marka laga reebo waxoogaa tababar ah ayay adag tahay maadaama oo aynan carbiskooda qayb ka ahayn inay yihiin ciidan dawladeed oo siyaasadda ka madax bannaan maamulkii yimaadana ay tahay inay la shaqeeyaan kana amar qaataan arrinta halista badan xambaarsan ayaa ah in saraakiisha ugu sarreeya ciidanka liyu booliska ay intooda badani geysteen faldambiyeedyo arxan darro ah bulshaduna aqoon badan u leedahay ayaa ah mid aan la dhayalsan karin maadaama ay saraakiishaasi aad uga cabsi qabaan in la gaaray waqtigii lala xisaabtami lahaa waxayna taasi keenaysaa inay sameeyaan wax kasta oo ay isleeyihiin waad ku badbaadi kartaan xataa haddii ay naftooda halis u gelinayaan waxaa hubaala inay jiraan tiro badan oo ka mid ah ciidanka liyuga iyo horjoogayaashooda oo weli daacad u ah
wakiilkii hore ee gumaysiga ee u fadhiyay ogaadeen iyo ee loo awood sheegtay Cabdi Ilay waxaana adkaan doontay in ciidankaasi si fudud looga dhaadhiciyo inay u hoggaansamaan amarada maamulka cusub taasina waa caqabad ay iyaduna u baahan in madaxweyne Mustafa uu si farsan u wajaho caqabada saddexaad ee uu la kulmi karo madaxweyne Mustafa ayaa noqonaysa degmooyinkii cusba ee uu magacaabay Cabdi Ilay maalmo kooban ka hor intii aan karkaarka la weydaarsiinin wakiilkii hore ee gumaysiga u fadhiyay ogaadeen iyo waxa uu ku dhawaaqay talaabo cajaa'ibkeeda leh waana ku dhawaad boqolkii degmo ismaamul magaalooyin iyo gobolladii uu sheegay in lagu kordhiyay guud ahaan deegaanka talabadaasi oo xitaa laga ansixiyay baarlamaanku sheegay Jigjiga ayaa u muuqata caqabad adag oo hortaala madaxweyne Mustafa waxa hubaal ah hadii uu isku dayo madaxweyne Mustafa inuu wax ka bedelo qaab dhismeedkii uu soo kordhiyay Cabdi maalmihii u dambeeyay oo ay si weyn ugu faraxsanaayeen dadkii deegaamadooda ay ka mid ka ahaayeen in mucaarad iyo diidmo xoogan oo adag uu kala kulmi doono iyadoo dhinaca kalena ay muuqato inayna suuragal baahayn hirgelinta degmooyin ismaamul magaalooyin iyo gobolladii uu Cabdi ku dhawaaqay haddaba inaga oo maanka ku hayna dhawaaqii madaxweyne Mustafa ee ku saabsanaa inuu isbedel dhab ah ku samayn doono qaab dhismeedka guud ee deegaanka mid heer gobol mid degmo ilaa tuulo ayay tahay inaan ku degdegin aan ka wardhowro qorshaha cusub iyo isbedelka uu wax kaga bedeli doono isku dhaxyaaci maamul ee la haray guud ahaan wadanka ogaadeen iyada oo waxa ka dhalan doona talaabooyinka uu qorshaysan madaxweynaha cusub arrinta kale ee muhiimka isbedelka u ah caqabado siyaasi ahna uu kala kulmi karo madaxweynuhu ayaa ah shaqaalihii kala duwanaa gaar ahaan mas'uuliyiinta xilalka ku magacaawna kuwaasi oo ayna muuqan intooda badan qaab ay ku sii joogaan marka la fiiriyo sifihii lagu magacaabay ama ay xilalka ku heleen oo kaliya inay daacad u yihiin hoggaankii hore ee gumaysiga u fadhiyay Ogaadeeniya taasi oo jirta ayay haddana halisteeda leedahay in hal mar oo laga jabiyo ama la kala diro waana arrin u baahan inuu madaxweynuhu si farsan ula falgalo caqabada afraad ee hortaala madaxweyne Mustafa ayaa ah xiriirka uu la yeelanayo dawladda federaalka ee Itoobiya waxa hubaala in dawladda dhexe ee Addis Ababa aysan ku farxin talaabooyinkii degdeg ah uu qaaday madaxweyne Mustafa sheegayna in lagu bedelayo dhammaan astaamihii deegaanka sida calanka heesta calanka magacii gacan ku rimiska ahaa ee DDSI iyo qodobo kale waxayna talaabooyinkani abuuri karaan khilaaf ka dhex dilaaca Jigjiga iyo Addis Ababa dii aan si miisaan leh loogu qancinin madaxa kooxda OPDO ee talada la wareegtay saddexdii qodob ee madaxweyne Mustafa shaaciyay bedelidooda oo ay si weyn ugu farxeen una soo dhaweeyeen ayaa hubaal tahay inuu madaxweyne Mustafa taageero buuxda ka heli doono shacabka iyo baarlamaanka deegaanka haddii kooxda OPDO isku daydo inay sii hor istaagto waxayna qodobadani ugu muuqdaan shacabka Soomaaliyeed xaq iyaga u gaar ah oo kooxdii Cabdi Ilay si sharci darro uga xayuubisay maadaama dastuurka Itoobiya uu si cad u ogol yahay in qoomiyad kasta samaysato astaamo ku suntan dhaqanka iyo hidahooda asalka ah caqabada kale ee hortaala madaxweyne Mustafa ayaa waxay noqonaysaa colaadda Oromada iyo Soomaalida ka dhaxaloosan laga soo bilaabo sanadii 2004 waxaa si isjabajooga u socday mu'aamarado qorshaysan oo laga dhex abuuray bulshooyinka Oromada iyo Soomaalida waxayna dhul ballaaran oo Soomaalidu leeyahay si sharci darro loogu wareejiyay maamulka Oromada deegaamada ama dhulka Soomaalida oo wareejintiisa ay kooxda TPLF ka lahayd qorshe siyaasadeed ayaa intiisa badan waxaa la wareejiyay sanadii 2004 waxayna arrintaasi keentay isku dhacyo joogto ah oo ka dhaxaloosma labada bulsho ee deriska ah waxayse tala faraha ka baxday 3 sano ee ugu dambeysay oo arrinku gaadhay meeshii ugu xumayd haddaba dagaalka labada bulsho u soo dhaxeeyay sanadihii la soo dhaafay oo galaaftay nolosha kumanaan dad ah magaalooyin iyo dhul beereed badan lagu gubay sidoo kalena ay ku barakaceen dad boqolaal kun kor u dhaafay oo labada dhinacba ah ayaa ah caqabad muuqato oo hortaala madaxweyne Mustafa mushakilka ugu weyn ayaa ah in maamulka Oromadu uusan wax garowsho ah haba yaraatee ka bixinin xasuuqii arxan darrada ahaa ee 3 bilood ee la soo dhaafay ay ku hayeen shacabka Birmageydada ah ee ku dhaqan deegaamada ay labada bulsho wadaagaan iyo gudaha dhulka Soomaalida ku yaala gaar ahaan Nageyle Dhakasuftu Jinacsanay Baabili Diridhaba iyo shacabka Soomaaliyeed ee gudaha dhulka Oromada ku go'doonsan gaar ahaan gobolka loo yaqaan Hararge
Soomaalidu waxay tirsanaysaa in dad laga laayay dhul laga qabsaday. Oromadu waxay aaminsan tahay inuu dhul ka maqan yahay 100,000 oo qowmiyadaasi ka tirsanna deegaanka laga soo barakiciyay oo hantidoodii la dhacay.